أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa 5 Somali TV waa barnaamijkeennii habnololeed waxaa idinla socodsiin doona anigoo ismahaan maxamed qayb xaaji cali xaydar biidnillah baari. maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo beenta iyo balwadda ama balwadda iyo beenta. beenta iyo balwadda maxaa kala galay? beenta iyo balwadda qaabkeebay iskula shaqeeyaan oo fudayd ay qofka inuu been sheego ay ugu noqonaysaa. balwaddu waa meeqa nooc? inta badan Soomaali waxa u taqaanaa qofkan balwad buu leeyahay markii la dhaho inuu yahay qof qaadka cuna, sigaarka caba, intaas bas ayaa loo yaqaanaa qofka inuu balwad leeyahay. laakiin balwaddu way noocyo badan tahay, noocyadeedana insha Allah waan sii guda gali doonaa. waxaad arkaysaa qof been ku nool eray ama qowl runaba ay ku yar tahay, boqolkiiba 80 waagu uu bariyo uu soo toosaba wuxuu ku hadlayaa intii allaale intuu awoodo inuu been sheego. mar isagoo isdhahay hadalka qurxi, qofkan hadalka ku soo jiido, mar isagoo isdhahay qofkan wax kaga diyaarso, mar isagoo isdhahay labadan qof way isku fiican yihiin kala dil oo xaasidnimo iyo namiimnimo iyo isku diraandirnimo aad ugu caan baxay. marka inta badan awil balwadda waxa loo aaneyn jiray un ragga oo la dhihi jiray qofkaas balwad uu leeyahay, qaad ku cunaa, sigaar ku cabaa, xashiishadu cabaa, waxyaalahaas. laakiin balwadda noocyadeeda markaan fiirino ayaan arki doonaa qof kasta balwadda meeshuu ka galaayo iyo beenta meeshuu ka galaayo. beenta dabcan aayado badanaa kusoo arooray, axaadiis badanaa kusoo arooray qofka muslimka inayna been u banaaneyn oo beenta ina aad loo adkeeyay, anagana beenta aan aad u fududeysano dabcan. marka balwadda iyo beenta inta badan waa laba saaxiibo oon kala maarmeynin ama waa laba lamaano oon kala maarmeynin. qofka hadduu balwad leeyahay beenta waxay u tahay fudeyd bay u tahay. qofka hadduu been yaqaanana iyadii beentiiba laftirkeed baaba balwad la dhihi karaa. balwadda noocyadeeda ayaa waxaa waaye qofka inuu yahay qof shaxaad ku nool ah. qofkan ma aaminsana dhididkiisa ama xoogiisa lixaad ilaahay siiyey ama caafimaadkiisa ama aqoontiisa intuu ku shaqaysto inuu meel ku gaari karo ma aaminsana. marka wuxuu aaminsan yahay balwaddaas oo shaxaadka ah, shaxaadkaas kaliya tuu aaminsan yahay. siduu shaxaadkaas ku heli lahaa marka qofkan waa inuu been abuuraa, been qurux badan waa inuu soo sameeyaa oo dadka ka gadmaysa. noocyada balwadda ayaa waxaa lambar 2 ah shukaansiga. qof waxaa laga yaabaa inuu yaabo markuu shukaansi maqlo uu dhaho shukaansiga sidee balwad u noqon kartaa. shukaansiga siduu balwad u noqon karo waan sheegi doonaa. waxaa kaloo balwad ah social media balwad ayuu noqonayaa, waana balwad qofkii balwad ahaan u isticmaala. waxaa kale oo balwad ah sidaan horeba u sheegay Soomaalidana badankeeda ay u taqaana qaadka. balwad waxaa kale oo ah sigaarka, xanta, wareega, hurdada xad dhaafka oo qofka inuu iska hurdo uu jecel yahay, cuntada xad dhaafka ah oo qofka markastaba inuu afkiisa waxba inuu ka madha aan jeclayn, saaxiibka xun, fadhi ku dirirka iyo filmaanta musalsalka ah. waa intii anigaan isdhahay balwad, laakiin way ka sii badan tahay, wayna ka baaxad wayna intan way ka baaxad weyn tahay balwadda. marka qofku waxaa laga yaabaa inuu isdhaho ani qaad ma cuno, sigaar ma cabo, hebel balwad muu leeyahay. may hebel balwad ma laha, sababtoo qaadna ma cuno, sigaarna ma cabo, intaas kaliya ayaa marka waxaa loo arkaa inay balwad tahay. laakiin qofkan waxaa laga yaabaa inuu yahay qof shaxaad ku nool, maanta dhan wuxuu raadinayaa un meel uu tago oo lacag adoo tirinaysa hadduu arko wuxuu rabaa inuu ka qaato. qof haddii lacag lagu sheego wuxuu rabaa inuu u tago oo soo shukaansado oo lacagta uu ka qaato, wax beena uu sheego. haddii maxaan ku dhahaye qofkii shaxaadka ku noolka ah oo balwaddiisa ay shaxaad tahay, wuxuu ku fikirayaa markuu saas usoo toosaba halkeebaad shaxaad ka raadisaa. alleelaha maanta hebel iyo hebel haddaad isku dirtid qofkaas waxaa laga yaabaa inuu qadadaada maanta dabaro uu labisana uu baxaya. meesha ayaa marka wuxuu tegayaa inuu maanta ka been abuuro oo qadfo oo wuxuu rabo uu ka sheego, isagoo marka qofkan weji kaga raadinaya. qofkaasna marka inuu wax siiyo oo soo shaxaado isagoo raba. shukaansiga ayaa isagana waxaa waa balwad kale. siduu balwad ku noqon karaa shukaansiga? inaad hal qof oo jeclaatay oo mustaqbalaad ka rabtid inaad shukaansatid oo la sheekeysatid oo meel aad wax isla dhigtaan oo ballan aad gashaan, ballantii waqtigeeda aad ku oofisaan, waa shukaansi sax ah. laakiin wiilkii inuu caawa inuu ugu yaraan 10 gabdhood inuu isku maro, gabadhii caawa ugu yaraan 20 wiil inuu isku marto
oo markaa shukaansigii uu noqdo dee wax been caawa dhan la sheegayo wiilkii gabadh buu wacaya adaan ku jecelahay buu caawa dhan ka dhaadhicinaya tu kale wacaya adaan ku jecelahay tu kale wacaya adaan ku jecelahay intaasoo dhan wuxuu sheegayaa been buu sheegayaa bal qalbigiisa hal gabadh unbaa ku jirta ama kulligood kuma jiraan laakiin dan gaara ayuu leeyahay marka intaasoo telefoon markuu waco oo mid kasta uu ku dhaho waan ku jecelahay intaas muxuu wadaa shukaansiga intaasuu ku dhex jiro dhan been ayuu daldalayaa beentaas marka waa been qurxoon oo qof qalbigiis lagu dhaawacayo marka shukaansiga iyo beenta halkaas bay ay maxaan beentii shukaansiga ay saaxiibo ku noqonayaan ama walaalo ay ku noqonayaan qofkiina waxaa balwad u noqotay inta gabdhood ee ballamin karo inuu ballamiyo inta gabdhood been u sheegi karo inuu u sheego caawa ugu yaraan wiilkan isagoon gabdhood la sheekeysanin ma seexan karo maba uu cuntameysaba every night habeen kasto ilaahay keeno waa inuu intaasoo gabadh u sheekaya haddii kale maba gamci karaba taasna marka waa balwad sababtoo ah wixii aad joogtayso ayaa balwad la dhahaa waxaan wax maalin kasta aad sameynaysid oo routine ah oo wixiina wax khayr aan ahayn oo wixii marka haddaad sameynaysidna ay ku qabanayso waa balwad nooc ka mid ah waaye gabadha iyadana sidaas iyo si lamida caawa waxaa laga yaabaa ugu yaraan 15 wiil 20 wiil inay u sheekeynayso 10 ba iska dhe 5 ba iska dhe laakiin 5taas wiil iyadoon u sheekeynin ama 10kaas wiil iyadoon u sheekeynin oo mid kastaba shaxaadkeeda aan ka raadsanin waxay bari ku suuq tagi lahayd sida hadda jirtaba hebelna lacag ka soo qaad kana lacag ka soo qaad kana lacag ka soo qaad walow 1000 shilin ba ugu yar $10 ugu yar ka soo qaad oo caawa ay ku xisaabtamayso inta wiilad la sheekeysanaysid hadday 10 yihiin ugu yaraan 7 wiil waa inaad lacag ka soo xareysaa waa shaxaad waana shukaansi waana balwad been baadna ku dhex jirtaa waxaa qodobka saddexaad social media sidoo balwad ku noqon karaa social media waa aalad laba mindil wadata mindidaas labada mindi ay wadato mindida ama aday kugu kala goyni ama adaa ku kala goynaysid haddii dhinaca khayrka aad u isticmaalaysid oo daraaso aad ka daraasaynaysid oo cashir aad ka baranaysid oo culimada waxay dhaheen aad wax ka qoraysid wax ka dhageysanaysid waa khayr soo kordhay cilmi soo kordhay open mind maskaxdaadii baa dhisaysaa kor baa isku qaadaysaa noloshaadii baad kula jirtaan loolan laakiin maanta haddii aad u soo gashid un sawir soo geli haddaad u soo gashid un qof cay haddaad u soo gashid un qof wax ka sheeg haddaad u soo gashid un maxaan ku dhahaye maanta dhan wax maala yacni inaad fiirsato sheeka maala yacni inaad dhageysato wax aan adiga waxba kuu soo kordhinaynin qayla waqaala waqtigaagina kaa dilaya haddii aad maanta u galaysid markuu waagu bari aad galaysid markuu hadana gabalkii aad galaysid daqiiqad oo ku qabanayo waa balwad sababtoo ah sidii shaahi camal shaaha laftirkiisa waa balwad sidii wuxuu ku qabanayaa marka lulmooto inaad seexata hadaa rabtid xitaa waxaad dhahaysaa maya Facebook gal maya Twitter ka gal maya Instagram ka gal Snapchat ka gal inta waxa raadinaysaa wax naftaada ay madadaalo ay ka dhigato oo waqtigii aad ku mootisid waqtigaas iyada aad mootinaysid oo naftaada aad u been sheegaysid oo hurdo la'aantii kugu ridaysa ama shaqada aad qabsan lahayd ka mashquulinayso ama intaad gashid beentaas aad sheegaysid intaas oo dhan waxay iskugu imanayaan maalayacni iyo waqti aad dayacaysid waqtiga aad dayacaysid iyo maalayacnigaasna diinta wax badan bay ka hadleen diinta aad ba uga hadashay maalayacniga waqtiga maalayacniga lagu dhuminayo marka adiga daqiiqadaas aad u galaysid uma galaysid khayr waxaad u galaysaa qofka khayr u gala social media-ga waqtigiisu waa habaysan yahay waqti kamida ayuu og yahay page-ka wax soo post gareeya oo positive uu ka qaadan karo meelaha dadka wanaagsan ay wax ka dhihayaan oo intuu fiiriyo hadduu comment ka bixinayo isagana qowlkiisa khayrka iyo wixii ilaahay markaas garansiyo ka dhihi karo laakiin qofkan kale balwad buu u galayaa qof inuu ku aflagaadeeyo ama qof sawirkiisa inuu wax ka sheego ama qof sawirkiisa inuu soo geliyo ama qof heesay inuu comment ka bixiyo oo jirkii dhanaa ee gabadhaas heesta qaabka u qaaday inuu ka faaloodo ama wiilkaas qaabka oo wax u sheegay inuu ka faaloodo ama qof intuu qoraal been intuu ka soo sameeyay inuu soo galay maanta dhan qofkan social media wuxuu ugu jira wax isaga uu ka dhiganayo fan yacni wax oo madadaalo uu ka dhiganayo intaas oo dhan dambi baa ku socota balwad waaye balwad waxay ku noqonaysaa wixii haduuna sameeynin ma joogi kara marka shaqo joogtay u tahay waxaas inuu sameeyo saas bay marka balwad ku noqonaysaa balwadana qaabka iskaga bedelisid iyo qaabka iskaga goyn kartid waa iyadana waa mowduuc kale qofka sigaarka cabaya iyadana waa balwad saacadu sigaarka cabay haduu cabi waayo qofkan wuu xanaaqaya uu kula dagaalaya uu kula diriraya laazim waa inuu cabaa maskaxda waa inuu qiiq galiyaa qiiqa marka maskaxda uu gelinayo waxa waaye wax maskaxdiisa uu ku xasilinayo hadii uu sameyn waayna balwadi waaye way qabanaysaa waxaa kale balwad ah wareega
wareegga markaan leenahay dumarka ayaa u badan qofka waagu bariyo gabadha xijaab xiranaysa waxay rabtaa guriga hableynay aado guriga hableynay aado guriga hableynay aado gurigeedii iyo ilmaheedii iyo danaheeda maaha haddii wax baranaysay akhriskeeda danaheeda maaha haddii wax kala qabanaysay wixii ay qabanayso dhan waxa uga la muhiimsan 2 mar 3 mar inay saas lugta u soo wareejiso oo gurigan gasho kan maxaa laga cunay kan maxaa laga cabay gurigan maanta maxaa ka jira kan inay wax soo ogaato bishardi maanta haddii waxba soo ogaan wayso waxay ku leedahay caajis baan dareemaya maanta ma bixin lugaha yacni nafta baxda ay leedahay maanta lugihii exercise ma soo sameynin exercise maaha waa exercise shar ah exercise khayr oo caafimaad ku jira maaha marka gabadhaas ragga uma badna balwadan wareegga dumarka u badan intaas waxay rabtaa gurigan maxaa laga kariyay kan maxaa laga cunay kan maxaa laga xidhay inay soo ogaato intan markay ka soo ogaato berri dambe ama isla galabtaas xaafad kale tegaysaa wixii meelahan ay ku aragtay xagga ku soo sheegaysaa oo ku soo waramaysaa haddii sameyn weysana way qabanaysaa xaaladaas waa laazim maalinta 24 hours kaas ilaahay siiyay waqti kamida inay banaanka u soo baxdo gurigeeda ka soo baxdo oo xaafada intay tagto inay soo wareegto oo wax ka soo sheegto waa wax يعني هدي سمين ويسو أي نفرحات دريمينين مركا وريقاسنا وبالود وريقاس محاكو دحجرة مركا واد وريقتي حنبات سو أرورسي حنتين حنكالات قدرتي ميل كالات جيسي واد شيكتي ماشي مركا محاكا دعاي حنبا كدا عدي بينبا كدا عدي وريقاس مركا وريق أدقفكو بوقانيسي أجريت كغيرات سنيسي ماها وريقاس سيدي سواحا كوفي عن haddii adan leedahay bax soo adeego soo noqo haddii qof qaraabo ama qof saaxiib ama qof muslina aad soo salaamaysid oo ilaahay darti marka salaantaas ay ka tahay inaad soo salaantid haddii qof uu mulay inaad booqatid haddii qof uu wax farxada uu leeyahay inaad booqatid wax u hadiyeysid tahadu wa tahabu sida yani ilaahay iyo rasuulkiisa nabi alayhi salatu wasallam hadad ku saleenaysid wareeg ma noqonayso de maalin kastana qof ma booqanaysid maalin kastana hadiyad ma qaadaysid maalin kastana naag ma umulayso maalin kastana qof ma xanuunsano oo maalin kasta wax dhacaya maaha waa wax bishii hal mar labadii bil hal mar dhacayo ama sanadkii 3 mar 4 mar dhacayo laakiin waagu ilaahay bariyay guriga xijaabkan xidhana waan ka baxaya iyadana waa balwad waxa kale balwad ah xanta okay dad aan shaqay dad wax aan iskala kiin galinba hadduu qof halka mara waa inaad wax ka sheegtaa haddaad wax ka sheegayso kuumaba noqonaysaba laba qof oo saaxiibo isku fiican hadda aragtid waa inaad isku dirtaa namiim waa inaad noqotaa waa inaad kala geysaa waa inaad kala dishaa waa inaad maanta dhan qofkan wuxuu yahay iyo wuxuuna ahayn oo la isku dardaray oo qurxisay waa inaad dadka ka gadaa kii shaxaadka raadsanayay iyo adiga waxaad ku kala duwan tihiin qofkan shaxaad buu raadinayaa oo jeebkiisa inuu wax soo galo raba ama inuu wax cunu raba ama inuu wax abu raba that's why beentan u sheegay adiga laakiin shaxaad kuma raadinaysid laakiin waxaad ku raadinaysaa sheekadaada qurxoon in lagu dhaho ama sir baad ogtahay in lagu dhaho ama wallahi akhbaarta dhanba ayada ka warhaysa in lagu dhaho de lagu amaano ayaad adiga rabtaa laakiin maanta dhan waxaad ku jirtaa qeyla waqaala haduu nin yahayna saasi islamadu wuxuu ku jira kii hebelaha qof shaqadiis buu ku mashquulaya qof daniis buu ku mashquulaya wuxuu rabaa inuu dadkii inuu isku diro kala geeyo maanta dhan qof buu qof xan uga geena qof kala been buu uga sheegaya qof wuxuuna sameeyay buu dhahay wuu sameeyay intaas dhan waxa ku dhex jirta beentaas waa xanti dambi baa ka soo gaaray oo ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarahtumuhu yani qof ma jecel yahay qof walaalkii inuu hilibkiisa inuu cuno isagoo meed ah qof meed halkaas yaala iska dhaaf inuu cuno inuu u soo dhawaado xitaa jeclaanay ma jiro qof wuxuu dhahay meed kuwan ka baqaya qof wuxuu dhahay waasan dad yaro la xulay oo markaas meedka qaabka loo dhaqay qaanuun ba u soo dhawaan xitaa qofkan maanta wuu dhintay kaale maca salaamay oo meel jirkiisa kamid ah taabo oo cafis hadda dhahay xitaa qofkii wuu gariiraya bal ka waran hadii lagu dhahay ma jeclaan lahayd qof walaalka oo meed hilibkiisa inaad cuntid waa maya marka qof kanaad xamanaysid deesaas buu la mid yahay maanta hadaadan dad xamanin oodan soo gogosanina ma ku noqonayso marka waa xanti oo isla markaasna ah maxaa la dhahay ishaq balwadi ah marka waxa la dhahay qofkan balwad ma laha laakiin balwad xun buu leeyahay oo wanaciyadu billah xan ah waxa kale iyadana balwad ah hurdo qofkan ma rabo inuu on time ku tukado on time intuu ku soo tooso inuu on time ku tukado daniisa inuu qabsado hadii gabadh ay tahay gurigeeda inay ka shaqeysato hadii gabadh wali aan la guursanin ay tahay inay guriga hooyada inay wax ka qabato ama inay dadkeeda caawiso ama inay wax soo kordhisato waxay ka doorbidaysaa waxa caajis aan jirin ba fuulan
hurdo wax yar baa la kici jikada la aad waxbaa la soo cuni hurdo khadkiya la galay cabaar baa la soo jeedaya hurdo qofka marka jirkiisa dhanba sariir buu ku dhamaysanaya jirkii baa dhimanaya isagii baa maskaxiyan dilmaya dadka noocaas inta badan waxay u badan yihiin dadka inta badan kole stress kan ka hadli doona stress ka hayo depression ku noqday oo waxba inay qabtaan aan rabin marka way isdhiibeen sariirtii bay saaran yihiin hurdo marka waxay seexanayaan jooga maqana ah qofkan indhihii buu isku haya si fiican uma hurdo mararka qaarkiina wuu soo jeedaa laakiin wuu jiifaa un marka waxay ku noqonaysaa wax uu caadeystay haddii dhahdid noloshan iska bedel sariirtan ka kac wax qabso bal qabiso orod bax noloshan iska bedelna wuxuu ku leeyahay ma awoodisaan baan rabaa marka balwad bay u noqotay qaabku iskaga bedelaa waa juhdi badan iyo dadaal badan inuu geliyaa dad ayaa iyagana jecel afka iyo gacanta inay iskugu roonaadaan waa dadka inta badan junk foodka cuno waaye cuntada caafimaad kale dadka cuno uma badna inay maanta dhan wax kor saarnaadaan oo wax cunaan laakiin dadka inta badan junk foodka cuna afkooda kama madho hadduu suuqa halkaas hadduu maray waa inuu istaagaa waa inuu baajiye gataa waa inuu saambuus gataa waa inuu sugarkin halkaas lagu jarjaray inuu wax waa inuu gataa oo saanta ku haya taasna inta badan dumarka ayaa u badan marka qofka maanta dhan inuu wax afka ku hayo dee waa laga fiican yahay marka qofka haddii meeshuu maraba hadduu wax ka cuni waayana uma noqonayso wuu dhareeraya xaraara qabanaysa dadka noocaas inta badan vitaminsigana uu ku yaryahay balwadna u noqotay meeshuu istaagaba inuu wax afka geliyo waana laga fiican yahay anshax ahaan iyo akhlaaq ahaanba waa laga fiican yahay waxaa kaloo iyadana balwad ah saaxiibka xun rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka haddaa fiirin rabtid isaga ha fiirin saaxiibkiisa fiiri hadda lismaba yaqaano nin kasta danbuu ku mashquulsan yahay laakiin saaxiibkiisa xageed ka ogaanaysaa social media gaad ka ogaanaysaa qofkan inuu xun yahay inuu ku fiican yahay horta halkaasaad ka ogaanaysaa kow ma u baahna inaad raaraadisid akhbaaraadkiisa qofkan qof khayr boosti gareenayo af gaaban oo hadduu meel comment ka bixin qof wanaagsan hadduu yahay waa qof wanaagsan qof afkii ka waashay oo wuxuu rabo ku hadla wuxuu rabo soo dhiga hadduu yahayna qof fiican maaha qofkaas yuu saaxiib leeyahay marka waad ka ogaan kartaa saaxiibka xun markaa balwad waa iyadana say balwad ku tahay dadka inta badan saaxiibada wanaagsan maba isku helaan firaaqo because nin kasta tiisa mashquulisay naftii iyo shaqadii iyo waxaa laga daba ordaya horumarkii iyo aakhiradiisii buu ka shaqeynaa saaxiibka fiican waxaa leys arkaa markay wax problem uu jiro inaad u tagtid oo dhahday dhibkan baa haysta seen u xaliya talo uu ku siiyo hadduu dhib uu jiro markaas kuu imaado dhibkii kaala qayb qaato uu ku caawiyo inta badan dad kulkulmayo sheekaysanaya maaha laakiin dadka asxaabta xun oo saaxiibada xunxun leh everyday way kulmayaan haddii kulmi waayaan maba u noqonayso first of all secondly hadday kulmaan waxay ka sheekaysanayaan wax shar ah shaydaannimo fisqi fasahaad maxaan soo dhacnaa maxaan sameynaa yaan dilnaa yaan yacni saaxiib xun khayr ma kuu horseeda marnaba inuu ku halaajiyo mooye inuu wax khayr kuu horseedo oo habeenkii xalay tegay ha sugan hadday markaa baadhay kulmi waayaan uma noqonayso iyagana waaba sharci u yaala maalin kasta inay kulmaan asxaabta xun marka asxaabta dadka saaxiibada xunxun oo saas u kulmaya hadday kulmi waayaan iyagana maadaama ay xaraaradii qabanayso balwad waaye tan ragga ayaa u badan hadduuba ilaahay waaga nabad ugu barsiiyo markuu saas u qureecdo ninkii uu labisto wuxuu jeclaanayaa meelaha uu soo marmaro meel kamid oo la iskugu imaado inuu ku hormaro haddii uu ku hormari waayana markuu shaqadiisa kusoo yaro wareegto inuu meeshaas laazim inuu imaado waaye maxaa layidhi maanta maxaa dhacay reehebel maxay dhaheen reehebel maxay sameeyeen reehebel baa reehebel ka fiican reehebel baa kan ah siyaasadda dhinaciisii kan iyo kan marka wuxuu gelayaa qayla waqaala oo xan ah oo weliba nasab lagu caynayo oo dad lagu aflagaadeynayo marka fadhi ku-dirirkaas waa midkii sheekeynayo hadliyo la dhageysanaya inuu noqdo ama midkii dhageysanaya inuu noqdo labadaba marka waa isku dembi dee kan wax dhageysanaya kan wax sheegaya hadduu waayi lahaa wax dhageysta maalayacnigiisa meeshaas muuna imaadeen marka ayaa ku caawiyey inuu beentaas iyo dembigaas inuu meesha ka dhaco ayaa ku caawiyey dadkan dhageysanaya ku caawiyey meeshaas waxaa ka dhacaya marka dad iyagina ka ganacsanaya cabitaan iyo shaah iyo maqaaxi ama meel la furay meeshaas marka waxaa ka dhacaya dembi badan qofka marka meeshaas iska lexita wuxuu dhihi karaa meeshan ka daaya waxaan dunuubtan iyo qayla waqaaladan iyo fadhi ku-dirirkan qofka cunto u iman kara waa cabi karaa waxyaalo dee khaas oo intay danahooda dhammaystaan way tegi karaan laakiin meesha fadhi ku-dirirka maqaaxyada way ka duwan tahay waa meel maqaaxyada ka mid ah laakiin way ka duwan tahay waxay kaga duwan tahay meeshaas waxaa arkaysaa rag badan oo intay isku imaadeen
buuqaya qaylinaya dagaalka cayda xanta subxaanallah marka waa balwad qofkaas u bartay meeshaas inuu everyday maalin kasta inuu tago hadduu maalintaas maalmo kamid ah hadduu tagi waayo way ku adkaanaysaa haddii lacala hadduu xanuunsado xitaa oo gurigiisa kasoo bixi waayo dadka u imanaya waa dadkii fadhi ku dirirka isku yaqaaneen markaas haddana gurigiisiiba wuxuu noqonayaa meel fadhi ku dirir oo arrimihii shalay dhaafay ilaan shalay uu xanuunsan maanta lasoo booqday update baa la siinaa waa la update gareynaya wixii shalay dhacay ama telefoon buu wacday waa loo sheegay meeshaas markii la imaadana wixii dhacay baa haddana waa markaas haddana sheeko kale la sii geli xan kale la sii geli buuq kale la sii geli marka fadhi ku dirirkana waa nooc balwad kamid ah waaye waxaa kaloo balwada kamid ah tan ragga u badan kubadda inaad tegtidood ciyaartid waa qayb caafimaadkaaga kamid exercise bay ku tahay laakiin ciyaarto hebel baa soo galaysa intaad dhahdid caawa ilaa 6 saac inaad sugtid oo qayb kamid intaad iskugu timaadaan aad fiirsataan caawa dhan aad qaylisaan oo meeshii la isku caayo tiimkii laga raayay maaha kii raayay oo buuqo kii laga raayay lees aflagaadeeyo xitaa mararka qaarkii dagaal ay dhacaan marka dadka iyagana kubadda fiirsada balwad bay u noqotay oo haddii markuu qofkan shaqada kasoo hoydo si kasta u daalan yahay caawa tiimka ciyaaraya hadduu fiirsan waayo uma noqonayso taasna waa balwad noocyada kamid ah waxaa kaloo balwada kamid ah filimaanta musalsalka waxaa u badan dumarka ayaa u badan sida ragga ciyaarta musalsalka ay u daawadaan xagga kubadda ay dumarkuna waxay daawadaan filimaanta musalsalka oo joogtada ah saacad ayaa jirta markaa filimkaas uu soo galayo ama salaada ha ku aadanaato ama shaqo guriga kaa dayacna ha ku aadanaato qofkaas waxba kama gelin wuu u fadhiisanaya wuu fiirsanaya wuu u qastaya markuu u fadhiisto oo qofkaas dumarka way fiirsani way dhammaysani markay dhammaysato tiim kale ayaa waqti kale isku imanaya intii isla fiirsanaysay filimka way iska warhayaan guri heblaayo ama guri heblaayo aan iskugu imaanay dhahayaan markay isku imaadaan waxay ka niqaashayaan oo ay ka wada hadlayaan discussion xoog leh ay galayaan sidii kaanama inay business ka sheekeysanayaan ama arin horumar inay ka sheekeysanayaan ayaa waxay ka sheekeynayaan filimkii qaabka u dhacay khiyaanadii qaabka u dhacday tii la khiyaameeyay kii wax khiyaameeyay yacni wixii bay ku soo celinayaan iyagoo meesha ku shaaheeyeen way ku raaxaysanayaan way buuqayaan xitaa isma dhageysanayaan mid kasta waxay rabtaa inay iyada sheekeyso markaas meeshaas kaale arag waxaa ka dhacay sheekada ugu cajiibsaneed oo musalsalkii ahayd intaas markay naa kasta waxay soo fiirsatay meeshaas ay ka sheegto way dhididaysaa way xaraara baxaysaa iyadoo faraxsan bay meeshii ka tegaysaa haye bal waan sarki doonaa maca salaama haddana isla caawadii baa la gaarayaa sidii si lamida loo fiirsanaya gurigan marka haddii ama gabadhan la qabo oo musalsalka ku xidhan odaygeedii joogo ama dad marti ay joogaan oo ka yara xishooto xitaa luuqay galaysaa deriska waa laisla soo fiirsanaya laazim waaye in laisla fiirsado oo marka haddana la isku imaado fiiri meeqa waqtiga dayacmay qof kasta wuu fiirsaday filimkii haddana mar labaad oo kale baa la iskugu imanaya haddana waa laga sheekeynay filimkii markaasa haddana waxay isku dayayaan dumarka usii dheer waxyaalihii filimka ay ku arkeen inay ku dhaqmaan waxyaalihii filimkaas ay ku arkeen oo ay sameynayeen dadkii filmaanta dhigayay inay iyagina ku dhaqmaan qaabkii qaab lamida inay iska raaraadiyaan oo macquul ah taasoo dhaqankoodana ahayn maybe laga yaabo diintana inayna saliiraad ku lahayn oo waafaqsanayn laakiin waxaa soo jiitay waxaan social media-ga ku jira soo jiitay oo ku qanacday qaabkii inay u dhaqanto ama qaabkii inay u labisato ama qaabkii inay gurigeeda u ekeysiiso ama qaabkii inay u wareegto adii wixii uun wax kamid ah inay sameyso ayay rabtaa marka maanta joogtada musalsalkana in la fiirsado iyadana waa nooc la caadeystay oo laga dhigtay iyadana balwada nooc kamid ah waaye marka intaba waxaa ku sugan intana aan soo sheegay waqti dhumsa ku sugan oo ilaahay waqtigu ka hadlay inaan waqtiga la dayacin laba waxaa ku sugan qofkan inuu shaqaysan waayo oo waqtigiisii inuu dayaco oo wax maala yacni inuu ku dayaco ayaa meesha ku jirto waxaa kaloo meesha ku jirta qofka isku diraandirka ah oo beenta sheegaya isagana inuu yacni beentaas uu sheegayo inuu ku raadiyo waxyaalaha isaga naftiisa anfacaya hadda musalsalkoo kale beenta halkii kasoo galaysaa haddaan dhahno waxaa laga yaabaa gabadhan gurigeeda ka baxaysa inay dhahdo hebla xanuunsan waan soo fiirinaa guriga been ay ka sheegto meeshaas markay u socoto markaa ma dhahaysa filim baan kasoo sheekeynaya laakiin dana kale sheegaysaa markay isku imaadaan naa kasta way buuqaysaa way qaylinaysaa mid kasta midda kale ka sheeka qurxiba isleedahay way ku dardaraysaa
mid baa dhahaysan asaas ma haynasaan haasaan baan u maleeyay yani waa mali iyo waa leeriyo qiiliya waqaala waaye markaas waxa laga yaabaa mid kamid ah inay ka tagto midii ka baxday inay hadana sii xantaan oo ay dhahaan tan maalmahan arrimaheeda maanan u bogine iyadoo shaqadeena la dhameysanin bay tagtay maxaa ka khaldan kan baa kana kii kale halkaas hadana xan kale iyo been kale ay ka farcanto waxa kale marka iyadan meesha ku jirta dadka inta badan dadka xanta iyo kan xanta loo keenayo iyagana waxay ku kala duwan yihiin malaha sababtoo kan xanta loo keenay maybe inuu dhibsanayo laakiin wuxuu dhihi karaa iga daani xan ma rabo ama ha ii imanin ama ha ii sheegin wuu dhihi karaa laakiin kan laftirkiis waa mid isaga un lamid oo xanta jecel oo isagana dadka xanta uu raadina kii hebel muxuu dhahay maxaa la yidhi haye muxuu sameeyay xaguu galay ama qofkaas la xamanay noloshiisa laga xun yahay ama horumarkiisa aan loo quudhaynin ama de waxaa la rabaa in la lugooyo ama in magaciisa la aafeeyo la wasakheeyo oo waxaan jirin in laga sheego la qadfo ayaa markaa ay u badan tahay kan marka isagana social media ku jiro oo maanta dhan waqtigiisa ku dhuminay waxa laga yaabaa gabadha hadii taan waqtigeeda way dhumisanin haduu yahay waqtigiisa uu dhumiyay marka inta guriga uu joogo qofkan waxa uga mudan ba inuu iska nasto qaab kale uu istiraxo hadii markaas social media galayana wax fawaaid inuu ka raadsado marka beenaalaha iyo kan maxaa ku dhahaa balwada le meel ay ku kala maarmayaan haba yaraatee ma jirto kan beenaalaha marka haduuna balwad lahayn beentiisa waxa la dhihi karaa dadka beenta sheegay way badan yihiin laakiin waa iska yara koobnaan kartaa baa la dhihi karaa kan beenta sheegay oo isaga isla social xagga internetka waxa laga yaabaa qofka inuu dhaho isagoon soo soconin oo gurigiisa jooga waan soo socdaa qof inuu been u sheego isagoo dhihi kara gurigan jooga haddaan soo baxaya wax ku kalifaya male inuu beenta sheego laakiin wuxuu leeyahay waan soo socdaa waxbuu shaqo dayacay qofkan booskiisii buu shaqo ka dayacay qof kale laga yaabaa inuu eedi saaro oo been sheego oo dhaho qof hebel baa saan igu dhahay qof hebel baa wax ka sheegay halkaas baan ka difaacay ma ogid moogta qofkaas inuu sidan dhahay markaas qofkii intuu qofkan shaqadiisa ku canaanan lahaa ayaa wuxuu dhageysanahay kadibna qofkan marka dambigii uu iska dhaqay qof kale oo shaqaba programkaas aan ku lahayn buu baxarkii galiyay qofkan kale booska marka waxa laga yaabaa qofka kale inuu uqdad u qaado oo isagana xanaaqo laakiin qofkan beenta sheegay timekaas mushkiladii isaga loo haystay waa ka gudbay bari hadana mushkilad kala dhacaysa oo isaga khaladkii galay wixii baa lagu haystaa isla been lamidu sheegi qof kale khaladkii saare dad kale iyagana waxa jira beenta sheegaan oo laga yaabaa meel inuu ka shaqeynayo shaqadiisii in la dhaliilo uu dhaho marka ani maalmaha waxaasan maxaad ku mashquulsan qof hebel baa yeeray oo ila kulmay oo wuxuu ugu dhahay mushaarkan ku badinayo qofkaas baa i weerariyo qofkaas baa iska qancinayo laba qof oo kale isku daraya bal isaga rabo inuu shaqadan ka tago been buu sheegaya marka xanta iyo beenta iyo turuufada iyo maxaan ku dhahay balwada ma kala maarmaan waa isla socdaan dadkan iyagana qaadkii sigaarka maanta dhan waa inuu wax soo amaahda oo been wax ku soo amaahda qaadkii sigaarkii markuu biilka soo qaado waa inuu lacag in ka gooyaa u dhahaa hooyaa soo hadashoon u diray walaal baa xanuunsaneed kan been buu sheegi laakiin lacagtii xaguu ku bixiyay meelihiisii balwadii ku bixiyay gurigii xaaskii wuxuu u keenaa lacag yaroon macno lahayn halkaas marka xaaskii isagina isku dhacaan isagana uu been sheego dhade waayahay dad baa ila soo hadlo dhibane dadkaas inaan caawiyo maad ka xun tahay oo bal iyadiiba sii aflagaadeeyo iyadina gurigii bay joogtaa ilmihii bay haysaa way rafaadsan tahay hawlihii oo dhan baa ku furan laga yaabaa inay meel tagto deen ay kasoo qaadato markay banaanka u baxda deenkii loo haysto isagana dee nin qayr mas-uula waayo balwadiisa ayaa ka xoog badan marka balwadiisaas daraadeed ayuu been u sheegayaa marka beenta dadka sheegaya iyo qaabka looga hortagi karo ayaan wax ka dhahaya insha Allah horta beenta waxay banaysay diinteena qofka 3 mar inuu been sheegi karo waa markuu naftiisa badbaadinayo hadii marka dad gaala ay haystaan inay dilaan ay rabaan oo markaas naftiisa uu ku badbaadinayo nin laba qof haday isku dhacaan labada qof ina been loo kala sheego alla uu ku amaanay uu ku jeclaa kadibna been loo kala sheego la dhaho ma ogid ninkaas meeshaad ka joogtid adigana masaan baad ula dhaqmaysaa marka labadii qof ina been loo kala sheego iyagoo marka xal laga raadinayo in la isku soo dhaweeyo labadan qulub la heshiisiinayo iyo maxaan ku dhahaayay nin inuu markaas naagtiisa waxyaalo markaas reerka burburinaya hadii markaas ay meesha ka taagan yihiin inuu beentii inuu markaa ku badbaadinayo qoyskan qaabka ugu dhaqmi lahaa qoyskan u xasili lahaa kan marka beenta sheegaya yani waa munaafiq diinteena say noo sheegtay waxa la dhahay calaamadaha munaafiqa waxa kamid ah qofka been sheegaya haduu يعني قفك مركو شاكينا علامة المنافق رسول كان عليه الصلاة والسلام وحكو شاكي قفك مركو شاكينا الشاكيديس وحكو قرحنا يا بين وقولك بس ديتان بين بو شاكي
haddii aad aamintid uu ka khiyaamaya aaminadeed aaminta kama soo baxayo haddii aad ballantaana ballantii kama soo baxayo ballantii wuu ka been sheegayaa marka qofka kaadibka ah oo munaafiqa ah calaamadiisa waa saddexdaas marka qofkan haddaad aamintay aaminaadii uu kaaga baxay oo ammaanadii ma ilaalinin haddii uu sheekeynayana beenunbaa maanta dhan sheekadiisa ku dhex jirto oo maba dhadhamayso haddii maxaan ku dhahay aad waqti wax ku ballantaana ballantii kama soo baxayo subxaan allah ilaah baan ka magan galnay rasuulkeena wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam ummadeyda yacni qofkii been sheega ummadeyda ka mid maahu dhahay qofkuu zinaysan karaa wuu xadi karaa laakiin been ma sheegi karuu dhahay baahidana waxaa ugeysu dhahay inuu wax xado dee baahi baa hayso inuu zinaystana baahi ruuxi baahi waxaa haysa nafsiyan laakiin inuu been sheego wax ku kalifi kara ma jiro dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu xarimay annaga meesha markaa beenta ay aad ay noogu fududahay noogu macaanta macnaheeda maaha been hala sheega ma hala zinaysta maaha laakiin yacni diinta meeshay ka istaagtay beenta ayaa meel adag ah marka qofkan beenta sheegayo horta waxaa laga rabaa isaga oo xal u ah ama fadhi kudirir ha aada meeshuu raba ha aadee qofka beenta sheegaya ayaa waxaa xal u ah inuu horta xasuusto labada malag ee garabkiisa taagan khayr iyo shar wuxuu ku hadlaba inay qorayaan maalin kamida inuu dhimanayo in la aasay in lagula xisaabtamayo beentan uu sheegayana dunuubta dhanba inay ay ku weynaanaysa xanna inay ku noqonaysa xantaasna dee qofkii aad xamatay ilaa cafaad ka dhahdid ilaahay kaama cafinayo sababtoo ah xadiisul qudsi baa kusoo arooray badda muggeedu dembi hadduu addoonkayga la imaado waan ka cafinoo ii toobad keeno ama dhulka muggeeda oo dembi ah laakiin shakhsi dembi uu ka galo qofkaasunbaa ka cafin karuu dhahay ilaahay marka fiiri meeqo qof baad maanta xamanaysaa been ka sheegaysaa ad isku diraysaa wanaciyaadu bilah intaasoo qof goormaad dhihi cafi maanta haddaad dhimatid oo aakhirada aad aadid oo maanta maalintii qiyaamaha dhacda buunkii la afuufo lagu xisaabiyo oo ajrina aadan haysanin intanoo qofna ay kuu soo istaagaan beentii xantaad ka sheegtay dembigoogaa lagugu raray saas baad markaa cadaabti ku manaysatay wanaciyaadu bilah beenta markaa dadka sheegaya waxaa laga rabaa inay xasuustaan suuradda idaa zulzilad aayadaha ugu dambeeya ku jirta mithqaala dara khayr haddaad samaysid waa laguu qori mithqaala dara shar haddaad samaysidna waa laguu qori wax laguu reebay maba jirtaba oo dhuumanoo ilaahay aad uga been sheegi karto marka qofkan kadaa'ibka oo beenaalaha oo xanlowga oo maxaan ku dhahay fadhi kudirirka saacad kasta fadhiyo ama intii balwadan soo sheegay ku shaqo leh waxaa laga rabaa inuu naftiisa xisaabiyo waqtigiisa xisaabiyo anytime inuu dhiman karana inuu xasuusto oo markaas waxyaalaha inuu ka tanaasulo kan beenta loo keenayo isagana nooc kale oo aaminayo oo qofkii goynayo oo qofkii la caraatamayo oo haddii telefoon loo diro telefoonkii qabanina haddii qofkan walaaltinimo usoo raadiyo wejigii u bedelayo oo nooc kale iska dhigayo aad moodidba isaga musiibadii adduunkeena kusoo degtay liajli beentii loo keenay xantii loo keenay dartii qofkan u geynayana waxaa laga rabaa suuratu xujraad aayadda kusoo aroortay aayadda 6 ah يا أيها الذين آمنوا إذا جاء فاسق فتبينوا يعني هدو قف فاسق كوي ما دو وجد قف كأنه فاسق يهاي لقن كيسي دبي عديسة وكتصايا فتبينوا دي عدين رادي هسكروا ما يسنن سان عدين كرادين كرا قف كبنت لقى الشيء كل واحد كتقانا والرقف كسوح اسمه إيه نكجوج هذا ونسوي الدين أجو ونسكوكين كين واسككين هور كينا يا مركا ماشات بنت اسكجش عدين بنت قف كمركا بلي كوجمسو إيرنايو qofkii beenta ka sheegay buu isku dayay inuu u tago xitaa isagana been kale qofkan uga gooyo labadan sayna iskugu soo dhawaanin madaxu iskugu geliyo marka dadka warka iyo beenta loo keenayo ama shaqadaha ka dhaxayso ama qaraabaha ahaadaan ama asxaabaha ahaadaan waxaa laga rabaa markastaba inuu ku dadaalo fayda jaa faasiqun fatabayanu inuu ku dadaalo ayaa la rabaa marka walaalayaal barnaamijka habnololeed wuxuu ka caawinayaa marka la fiiriyo beenta iyo balwada qaabka xiriir u leeyihiin ayaa asadan soo socotay inaad iskaga bedeshid qofkii beenta loo sheegayna inuu markastaba aayadii uu tixraaco oo aayadaas uu dhaqan geliyo oo ku dhaqmo inuu qofkan faasiqa ee isku diraandirka ama shaqadiisa ka been sheegaya ama dadka iska qadfaya inuu markastaba shaqo ka qabto sidoo ula dhaqmayso ka duwan inuu la dhaqmo isagoo markaa ku dadaalaya inuu wax hubsado oo dadka inuu iskala dagaalin inuu iskala cadhoonin inuu yacni go-aan iska gaadhin kan markaa beenaalahana isagana waxay ka caawinaysaa inuu beenta inuuna ku degdegin oo mar dambe qofkan inuuna been iyo waxyaalo lamid inuuna ula imanin midda kale ee la rabo qofka beenaalaha ama balwada caanka ku noqday ayaa waxay tahay inuu ka tanaasulo waxyaalahan uu ka been sheegayo naftiisa inuu xisaabiyo kadibna uu dhaho beentan maxaad ka dheefaysaa xitaa qofka beenaalaha kaadibka isku diraandiraha ah
ودadka inta badan iyagana la sheegay qabriga cadaabul qabriga in dee rasuulka عليه الصلاة والسلام isagoo maraya intuu laan soo qaaday oo laba qabri kala galiyay asxaabta markay weydiiyeen عليه الصلاة والسلام uu dhahay kana namiimi u ahaa kaas kalena wuxuu ahaa kaayada si fiican iskaga dhaqi jiran marka namiimnimada yani cadaabul qabrigana ilaahay baan ka magan galnay inay adag tahay qofka uu og yahay marka qofka markastaba bal inuu nafsadiisa ku tarbiyeeyo dhaqanka suuban ee diinteena ah inuu ka tago dhaqankan shaydaanka iyo naftiisa markastaba ay ku riixayaan inuu marka kii beenaalaha ahaa ama balwada meelaha fadhi ku dirka aadi ama filmaanta aadi waqtigaas uu dayacayo wax ka duwan inuu ku bedelo dadkii markaas ay isku asxaabta ahaayeen inuu ka hawagadisto dad kale oo markuu been sheegay war ilaahay ka cabso beenta naga dhihi jiray dadkaas inuu saaxiib la noqdo dadkii runta u sheegi jiray ka carar jiray inuu saaxiib la noqdo waqtiyaashii meelahaas maalayacniga uu tagi jiray inuu waqti quraan akhriyo iyo waqti qoraal la kala sameeyo waqti naftiisa intuu ku xisaabiyo horumar kale inuu ku bedelo inuu ku dadaalo dad badan haduu isku dirayna inuu ilaahay cafis weydiisto ilaahay dadkaas uu ka been sheegay qulubtooda inay u soo dabcaan inuu ilaahay weydiisto ilaahay ka baryo marka qofkiina mar intuu u tago inuu dhaho walaal dambi badan baan ka galay ilaahay dartii ugu cafi qof kasta ilaahay dartii ugu cafi markii la dhaano qofku iska khushuucay wuxuu dhahaa waan ku cafiyay bal waanu kuugu daraya qofka marka cafiska isagana dalbanaya lama rabo in shaydaanka lagu sii kaalmeeyo oo la caacayo oo wax laga sheego waan la dhahaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ku soo hanuuniyo mahad iskale waxaan haw noqon walaal waan ku cafiyay insha Allah garabkaagana in la dhaho lagu dhiirigeliyo waxa kale oo balwadiya beenta uu qofku uga gudbi karaa hadii uu ahaa maxaan ku dhahaayay dadka inta badan socodka badan oo de lugahoodu ay lugaha ka waalna inuu ku hakado gurigiisa ama masaajid inuu ku hakado gabadhii wareegi jirtay saasay silamada marka naftii maalinba maalinta ku xigto in lagu tarbiyeeyo waxyaalaha khayrka ah iyo istighfaarta iyo saliga nabiga kaleey salaatu salaam marka qofka meeshii shayaadiinta deganeed iyo naftii xiqdiga iyo xasadka iyo xanta iyo beenta isku raacaysay naftii way ka dhex guurayaan malaa'ig baa soo galaysa qalbigii qofku uu xasilaya in badan qofku wuxuu noqonaa qof wuxuu sameeyay ka shallaynayo oo markastaba jecel inuu khayrka inuu ku dadaalo marka walaalayaal balwadi iyo beenta qaabkaas bay walaalo ku yihiin qaabkaas bay isku saacideeyaan qofkiina saas aan soo sheegay buu kaga tanaasuli karaa ilaaha naga dhigo kuwii markastaba xaqa ku dadaala beenta iyo balwadana ka fogaada waxyaalaha markaas maalayacnigana iskaga taga wixii khayr inoo ana ku dadaalo iskuna dhiirigeliya wixii aan asiibay waxa iskale mahadaas rabbul caalamiin baa iskale wixii aan gafayna nafteedii shaydaan bay kamid ahaadeen insha Allah hab nololeed barnaamijyadan iyagana ka sii hab wanaagsan oo umada anfacu ah waa idin diyaar hadii Ilaahay raali ka noqdo waqti Ilaahna siiyo nafta nagu daayo idinkana waxa iga codsiya halkii sheed dhageysataan inaad ku dhaqantaan maaha waxaad maqasheen oo dhan hal mar inaad qaadataan balse shay kamid intaad qaadataan hadda dhaqan gelisan Ilaahayna uu noogu wada naxariisani maxaan ku dhahaayay toobadeedin Ilaahay uu naga aqbal insha Allah biidnillah bari idinkana wixii aad u baahantiin in laga hadlo waad nala soo sheegareyn kartaan mar labaad iyo mar saddexaad waad ku mahadsantihiin daawashadiina wacan waa anigoo ismahaan maxamed qayb xaaji cali xaydar oo barnaamijka habrololeed idin kala socodsiinaysay 5 Somali TV assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh